wiil dhalinyaro ah oo 19 jir ah oo muddo bil gudaheeda ku noqday billionaire hadda ma aha millionaire waa billionaire caanka ah dalkiisa iyo dunidaba ku soo dhawaada mowduuceena maanta oo faahfaahsan السلام عليكم نود داوده waxaan Mustafa Cabdullaahi Maxamed halka adiga daawanaysan waa Dhahool Official fadlan daawada hadii ay tahay markii kuugu horeysay booqashada channelkan waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe-ka nagu caawisid sababtoo ah waa bilaash anaguna dhiirigelin bay inoo tahay nin dhalinyaro u dhashay dalka Ingiriiska ayaa si la yaab leh u noqday billionaire kadib markii uu muddo bil ah ka shaqeynayay suuqa sarifka lacagaha qalaad ee online-ka ee aan u naqaano Forex haddaba daawadayaal badan oo idinka mid ah waa ay garanayaan Forex iyo macluumaad badan oo ku saabsan Forex haddaba daawadayaasha uu ku cusub yahay magaca Forex haddaan u qeexo Forex waa laba eray oo isku tagtay oo kala ah foreign iyo exchange oo marka la isku geeyo noqonaya foreign exchange kaasoo macnaheedu Soomaali uu ku noqonayo sarifka lacagaha qalaad haddaba suuqan dhexdiisa waxa maalin walba lagu kala bedeshaa lacag gaaraysa 5.3 trilyan oo dollar haddaba ninkan dhalinyarada ah oo lagu magacaabo Dane Leg ayaa waqtigan leh diyaarad asaga u gaar ah sidoo kale waxa uu leeyahay guri kuwa lagu raaxaysto ah waxa uu mushaar joogto oo aad u qaaliya u qoray labadiisa waalid si aanay marka ay duqoobaan aysan u shaqeyn wiilkan oo da'diisu ay tahay 19 jir ayaa sida ay jariirada Daily Mail ka soo baxday dalka Ingiriiska ku warantay waxa uu ka saaqaday iskuulkii oo waxa uu diiday inuu galo imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiga sare ilaa haddana wiilkan waxa la weydiiyay sababta ku kaliftay inuu imtixaanka iyo iskuulkaba ka haro walina uma hayo jawaab haddaba Dane Leg ninkan dhalinyarada ah ee billionaire-ka ah sidoo kale da'diisu ay tahay 19 jirka calin bixiya talooyin sida ugu fudud ee dadku u maalgashan karaan Forex haddaba sida ay ku warantay jariirada Daily Mail ee ka soo baxday dalka Ingiriiska ninkan dhalinyarada ah ee lagu magacaabo Dane Leg 19 jirkana ah billionaire-kana sidoo kale ah kana taajiray sarifka lacagaha qalaad ee online-ka ah ayaa halkii tale oo uu bixinayo waxa uu ku qaataa lacag dhan 1000 gini taa oo marka la bedelo noqonaysa 1400 oo dollarka Mareykanka ah waxaana daawada dareemi kartaa qiimaha inta la eegay lagu qaadanayo fikirka kaliya ah faa'iidada ku hoos duugan haddaba ninkan dhalinyarada ah ayaa sheegay in tiro dhowr jeer ay la soo xiriireen bangiyo caalami ah kuwa oo ka codsaday inuu la shaqeeyo waxa uu sharaxaad ka bixiyay in dadaal uu sameeyo ku gaaray heer shaqo la bariyo halka markii hore uu shaqo ka dooni jiray goobaha ganacsi iyo sidoo kale bangiyada haddaba sida ay ku warantay warbaahinta Ingiriiska Dane Leg waxa uu sidoo kale laba koonto ku leeyahay baraha xiriirka bulshada ee Instagram-ka iyo sidoo kale YouTube-ka Instagram-ka waxa uu isticmaalaa wixii fikir sidoo kale YouTube-ka waxa uu isticmaalaa inuu ku soo gudbiyo casharro taxanaata oo dadku ku fahansiinayo sida ugu fudud ee uga macaashi karaan faa'iidada nooga heli karaan ganacsigan Forex-ka daawada intaas ayuu inoogu egyahay muuqaalkan gaaban oo aan uga hadlaynay wiil dhalinyaro oo 19 jir ah oo noqday billionaire bulshada caalamka aad u wada taqaan aadna loo hadalhayo waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan fadlan hadii ay tahay markii kuugu horeysay booqashada channelkan waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe-ka nagu caawiso sababtoo ah waa bilaash intaan muuqaalkiisa xiga ku kulmi doono sanad cusub maanta waa maalintii koowaad ee sanadka cusub ee 2020 waxaan rajeynayaa in sanadkan uu noogu dhamaan doono bashbash iyo barwaaqo qof walba hamilana waxaan u rajeynayaa in Ilaahay hamigiisa u rumeeyo dhamaanteenba mahadsanidin